maqaayadooda inaa ka dhex qadayo aniga socdaal ahaan haddaan xaqiiqda ka hadlo nin kaftama maahi wax isku dirmada iyo ku tirikitaanka haddii aad joojinayso waa balan adiga korkaa ka dhex hadlaya haddii aad u baahan tahay sawir qaadis haddii aad u baahan tahay ayu video nuuc walbo waad ka helaysaa studio aan ku leenahay magaalada Muqdisho halista studio teeda kale waxaan u sheegayaa bulshooyinka Soomaaliyeed in lambarkan hadda oo alista studio inuusan ahayn lambarka aniga aan leeyahay oo yahay lambarka studio dad waxa jiraan soo wacay markasta dhahayo socdaal oo baahanahay ku ekaa socdaal oo baahanahay lagu xiriirinayaa laakiin la soco mar walba lambarka inuusan ahayn lambarka aniga aan leeyahay waa maasanta daawada muuqaalka dadka xayeysiinta loo sameeynayo khaasatan aniga socdaal oo sameeynayo waxa kale soo xiriir kartaa isla lambarkan adigoo dhahayo socdaal oo baahanahay macnaha way noqon lambarka inuu yahay lambarka socdaal waa maasanta walaal daawada muuqaalkan kulanti waxaan oo wanaagsan daawada leeyahay si kasto ay daawanaysan si kasto ay maqlaysan waa anigoo ah super socdaal halka ay daawanaysan waa barta YouTube-ka ku leeyahay socdaal channel iyo barta Facebook-ka ku leeyahay halista photograph soo dhawaada mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad caawa maxaa idin wada waxaa idin wada oo intii kugu tala galay in aan idin shaaciyo idin sheego waxaan rabaa inaan ka hadlo sababta igu kaliftay inaan soo dhaweeyo walaalkii Muniraqa sababtii uu kaliftayna soo dhaweeyo walaalkii Muniraqa caawa halkaas ay halkaan soo fadhiistay iyo barnaamijyad kale dheeriya soo dhawaada mar koowaad mar saddexaad ugu horeyn haddii aan ku bilaabo sababta aan u soo dhaweeyay Muniraqa sababta Muniraqa aan u soo dhaweeyay waxay tahay waa wiil walaalkay oo Soomaaliya sababta u soo dhaweeyay waa inuu yahay wiil walaalkay oo Soomaaliya waa sababtu waa midaas mideeda labaad inaan ka hadlo aan rabo caawa waxay tahay shalay magaalada Muqdisho waxa ka dhacday soo dhaweyn aad balaaran soo dhaweyntaas oo lagu soo dhaweynay walaalkay Muniraqa soo dhaweyntaas oo ahayd mid aniga aan ka qayb galo aan kamid ahaa dadkii soo dhaweynayay sida qaaska alxamdulillah shukr العالمين soo dhaweyntaas waxay u dhacday soo dhaweyn si qurux badan u dhacday ma sha Allah boqolkiiba boqol waxa ka soo qayb galay dad fara badan youtuber waxa ka soo qayb galay dad fara badan social media magac ku leh tiktoker fara badan ka soo qayb galeen waxa ka soo qayb galay bulshooyin fara badan ka soo qayb galeen kuwaas oo daneynay in ay waqti fiican la qaataan walaalkood Muniraqa ugu dambeyn waa ay qaateen asagana waqti waa uu siiyay ugu dambeynna soo dhaweyntaas waxay ku dhacday si qurux badan boqolkiiba boqol sida laga rabay ku dhacday ma sha Allah horta waxaan baleynaya walaalkayga wuxuu soo bandhigay ayna qalbi nadiif ah soo bandhigay boqolkiiba boqol lana qaybsay bulshada Soomaaliyeed halkan ayagana waxaan uga sheegayaa shalay in ay ka baxsadeen soo dhaweyntii shalay walaalkood ay u sameeyeen oo ahayd soo dhaweyntii abid loo sameeyo qof taa meesha uu gudbaa tan labaad inaan rabo in caawa aan ka hadlo waxay tahay waxaa jiro dad fara badan oo rabaan inay dadka isku gubaan inay dadka ay rabaan inay isku diraan aniga socdaal ahay qof ma leegu diri karo aniga socdaal aan ahay qof ma leegu maqrin karo waan arkaa social media inta badan xalay ilaa ay shalay hadallo badan la isdhaxeeyay si gambasho ah si bareera si dhuumasho ah waa la durayaa waa la dirayaa waxa la leeyahay ninkaas wuu caayay socdaal aan amal hadii aan ahaan lahaa ma soo dhaweyn lahayn Munir hadallo noocaas ah ma maqlay والله waxaan leeyahay dadka isku diraayo oo dadka isku makrinayo waxaan leeyahay waa qaldantiin boqolkiiba boqol shalay Munir waa la socdaa boqolkiiba boqol in uu macnaha video oo macnaha xoogaha iska funny aan soo sameeyay oo hees aan soo bandhigay inuu ka hadlayay macnaha ani ahaan waxa uu arkay bandhigaas markaas uu bandhigay iyo raashkaas uu bixinay in ay ka edmadadaalo social media inuu wuxuu yahay sida badan madadaalo aan ahaan waxa uu arkay madadaalo in ay ahayd markaas oo dadku madadaalinayo oo kaliya okay inta ka xun macnaha oo ka xun oo macnaha dadkaas oo rabaan inay isku gubaan isku diraan waxaan leeyahay ani qof ma leeyahay dari karo boqolkiiba boqol aniguna maahi qof macnaha qof lagu maqrin karo oo lagu diri karo oo macnaha la dhihi karo qofkaas saasoo ku yeelay saan maxaa u yeeshay والله هذا تص أنا صدق أهلها أو سؤال بوسي سأتاجنا لها نيجاس مصمم لهن ساس ميل لهن أنا جا سؤال الآن هذا رنت إني كجاه الله وح قلتي واجب إسارنا يا قلتي أنا جا واجب إسارنا أنا وحها إن أنا صور دوي نيكاس ولا الكيء وأنا ولا الكيء وأنا الصوماليات وأقول دليل وأقول إن إجعلي برشة الصوماليات
anigana waxa kamid ah bulshada Soomaaliyeed kamid ah aniga anoo jaanis haayo anoo waqti haayo anoo awoodi karo qof walaalkay ah inaan soo dhaweeyo ama waqti inaan u horo ku bixiyo waqti anoo awoodi karo haddii aan iska meeri iska madadaaliyo oo waxay noqonaysaa markaas inaan qof isla weyn adduunkan aniga waxa ugu nacbahay qofka isla weyn adduunka ugu nacbahay waxa ka sii nacbahay qofka isla weyn qofka la socda ka sii nacbaa boqolkiiba boqol naclad ku dhacdo adama dhahayaaba naclad ku dhacdo maxaa u leeyahay dadkii shalay iyo daraad isla dhax qaadayay socdaal inuu munir soo dhaweeyo maysan ahayn aniga haddaan ahaan lahaa socdaal ma soo dhaweyn lahayn ayaan u hayaa qof walbo oo hadalladaas qaldan macnaha ku hadlayay oo rabo ama si bareera ahaato ama si gambasha ahaato waxaa balan ah maqaayadooda inaan ka dhex qadayo aniga socdaal ahaan haddaan xaqiiqda ka hadlo ninka aftama ma ahi waxa ay la shaqeeyaa burhaan waxa ay la shaqeysa dabeeshaasoo ah mid adiga awoodi karto inay dhax gasho korkaaga maqaayad ay aad shala korkaaga ka dhaxalaya haddii aad joojin weyso isku dirmada iyo ku tirikitaanka haddii aad joojin weyso waa balan adiga korkaaga ka dhaxalaya waa kuma qofka hadlaya waa socdaal baa laga dhaxalaya laga leeyahay adiga korkaaga okay taas halkaas ugu gudba boqolkiiba boqol waxaan leeyahay wixii ani aan sameeyay wixii ahaayeen wixii ani aan sameeyay waxaan waajib isaarnaa waajibkayga waan gudta boqolkiiba boqol wuxuu ahaa waajibkayga inaan soo dhaweeyo ninkaas aniga walaalkayga waana soo dhaweeyay boqolkiiba boqol sidoo kale caawa waxaan halkan u soo fadhiistay inaan ka hadlo dadka mar walba isku dayo in ay fanka ay soo galaan iyo dadka fanka ku dhex jira oo fanka inay rabaan horumar inay ka sameeyaan wallaahi aniga ka socdaal ahaan waxaan arkay muuqaalkaasna wuxuu noqday mid aniga isoo jiito waa video waa hees waxa soo sameeyay heestan yar la yiraahdo Zubargeedi maasha Allah boqolkiiba boqol halkan ka salaama muuqaalkaasi ma markii aan daawanayay ma saxoogtiisa markii aan ogaaday markii aan daawanayay aniga isma lahayn muuqaalkan Soomaaliya sameysma lahayn waxaan u maleynayay muuqaalada ay sameeyaan wadamada hormaray muuqaalku waa muuqaal aad u cajab leh ana xataa wuu cajab galiyay waxaan rabaa dib baan kaga sii hadli doonaa horta ugu horeyn muuqaalkan isla daawanayaan rabaa si aad u aragtaan afadina gacan gormaani maani gurigina kuna gormaati soo bari afadina gacan gormaani maani gurigina kuna gormaati soo bari xamar weyne miya xamar bila miya xamar jajamiya xamar jadid miya xamar weyne miya xamar bila miya xamar jajamiya xamar jadid miya kuma dalay kuwii tadeere kuma dalay kuwii tadeere waxaan filayaa muuqaalkan inuu idin cajib geliyaa filayaa boqolkiiba boqol wallaahi billahi tala waa aamini waa ani ahaan waa aamini waa boqolkiiba boqol sababtoo ah backgroundka kaamirada lagu duubay qaabka loo duubay muusigada erayada jileynka haddana jileynka iga gadan oo wallaahi jileynka iga gadan boqolkiiba boqol dadka qaar ma samayn karaan wallaahi walaalkayga qaaliga Zubargeedi waxaan ku leeyahay wallaahi horta ani ahmadaada ma heesan karo waa toora ahmadaada waxaa sameeyay horumar waxaan ku leeyahay keep going qof kasto oo isku day sameeyana waxa balan ah in aan soo qaato waan soo qaadanaya waa balan qof kasto isku daygiisa oo macnaha in cajab geliyo oo la noqdo macnaha cajab gelitaan wallaahi wiilkan ani ahaan way cajab geliyay muuqaalkiisa aan ana level waa inna caadi ma ahan waxa uu leeyahay waxay tahay muuqaalka qaabka uu soo sameeyay iyo qaabka uu soo duubay iyo heesta qaabka ay tahay xamar weyne miya xamar jajab miya